السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal kusoo dhawaada warkii fiidnimo iyo raadiyo kulmiye oo caawa idin kaga imaanaya magaalooyinka Munich ee dalka Jarmalka iyo magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway qodobada caawa wararkeena ugu door karoon waxa kamid ah Abu Zubair oo shabaab ku dhiirigeliyay inay sii wadaan dagaalada Mareykanka oo ballaarinay saldhigyada uu ku leeyahay Djibouti reer Muqdisho oo maalintii labaad si weyn ugu ciiday qarax aad u xoog badan oo lagu weeraray maqaaxi ku taala magaalada Kismaayo dowladda Uganda oo heegan gelisay maalmaha ciidda booliska dalkeeda qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga oo kala qayb qaatay bulshada ciidda Caraf madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay isgaargaaraan maalmaha ciidda midowga Yurub iyo Itoobiya oo ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab maamulka magaalada Boosaaso ee Puntland oo ka warbixiyay wadooyinkii ku burburay roobabka ka dhacay magaaladaasi waa 27-ka bisha Oktoobar ee sanada 2012 ciid wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warkii oo fidsan oo caawa idin kaga imaanay stuudiyaasha uu raadiyo kulmiye ku leeyahay qaaradda Yurub waxaana warkan caawa idin kala socodsiinayay magaalada Munich ee dalka Jarmalka anigoo ah Cabdifataax Xuseen Goley magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway waxa nagala socodsiinaya anigoo ah Axmed Xiiri Jalwo Axmed Taajir warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay arrimaha maamul u sameynta iyo dhuxushii laga dhoofin jiray magaalada Kismaayo warkaas oo faahfaahsan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Kaynaan war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri dawladda Soomaaliya waxay taageeraysaa kuna adkeynaysaa sii wadida xayiraadda dhoofinta dhuxusha ee laga dhoofiyo dekedda magaalada Kismaayo taasi oo dhawaan wadamada ku jira golaha ammaanka ay si wada jir ah u qaateen go'aanka lagu joojinayo dhoofinta dhuxusha ee dekedda magaalada Kismaayo taasi oo dawladda hore golaha ammaanka ugu gudbisay isla markaana sheegtay in dhoofinta dhuxusha aanay dhib ku ahayn deegaanka oo kaliya ee dadaalada ammaanka ay qatar ku tahay taasina ay tahay sababta dawladda ay u dalbatay xayiraadda la saaray dhoofinta dhuxusha ee dekedda Kismaayo dawladda Soomaaliya waxay muujinaysaa sida ay uga xun tahay fal kasta oo wax u dhimaya xayiraadda iyadoo si taxaddar leh ula socon doonta dhisina doonta guddi arrimahaasi si gaar ah ula socda dawladda Soomaaliya waxay si weyn u soo dhaweynaysaa guulaha la gaaray tan iyo la wareegistii magaalada Kismaayo ee ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo ay sidoo kale la socdaan ciidamada kooxda Raskamboni iyadoo mas'uuliyadda haatan ay leeyihiin hogaamiyaasha gudaha ee deegaanka si ay u mideeyaan ujeedooyinka kala duwan ee siyaasadeed kana jira gobolka oo idil si loo sugo ammaanka loona gaaro isfahan buuxa dawladda Soomaaliya waxay si cad u muujinaysaa in ay taageersan tahay oo kaliya garoonka iyo dekedda Kismaayo marka la fulinayo adeegyada dhinaca shacabka ah sida kaalmooyinka bini'aadanimo waxaana arintaasi wakiil ka ah oo xaqiijinaya ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM oo kaliya inta sida ugu dhaqsiyaha badan laga soo dhisayo maamul dawli ah dawladda Soomaaliya waxay ogsoon tahay in dadka Kismaayo ka soo daaleen foodo iyo dhibaatooyin ragaadiyay oo ka dhashay siyaasadda gurcan oo ay horkacayeen qabqablayaasha dagaalka iyo kooxo mayal adag taasina ay keentay hadda in ay shacabku daalaan diyaarna u yihiin in ay gaaraan nabad iyo horumar buuxa ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri sidaa darteed xayiraadda dhuxusha waa mid sidaa u saarnaan doonta dekedda tani inta ay dawladda ka sameynayso qorshe lagu maamulayo arrimahaasi dawladda waxay dalbanaysaa in la sii wado xayiraadda golaha ammaanka ee dhuxusha tirsigiisuna ahaa 2036 isla markaana dawladdu waxay diyaar u tahay inay gargaarto dadka reer Kismaayo iyadoo dhawaana u diri doonta shixnad saaran markab sida gargaar bini'aadanimo oo tagi doona magaalada Kismaayo Abu Zubair oo shabaabka ku dhiirigeliyay inay sii wadaan dagaalada ay kula jiraan dawladda federaalka ee Soomaaliya warkaas oo faahfaahsan waxa eegay wariyaheena Cabdiqaadir Cabdullaahi Maxamed
أحمد عبد جودن أو شباب دحدي سلوجا يقانو مختار عبد الرحمن أبو سبير أهنا هوجان كأوجسر يا الشباب أو كهاللي مناسبة عيد الأضحى أيا وحى أو كلت لي عيد مدى الشباب إن يسيدر درجليان دجالة أي كلت ران عيد مدى الدولة يكوا مسوم أبو سبير وحاو tilmaamay in xilligan goobihii laga la wareegay al-shabaab ay wali xukunkooda u ka shaqeeyo waxa uu sheegay in shabaab aysan ka bixin waxa uu meesha ka saaray in shabaab looga awood roonaaday dagaalo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa uu sidoo kale tibaaxay in al-shabaab xukunadooda iyo waliba awoodooda wali Soomaaliya ka jirto uuna baaqay dagaalyahanada al-shabaab inay sii dardargeliyaan dagaalada ka dhanka ah cadow uu sheegay inay ku soo duuleen Soomaaliya ilaahay hadii waxa ah in duulaanka amisom la kulmayo guuldarrooyin badan waxaana arrintan marag u ah ugu horeyn maamuladii wilaayadka islaamiga sidii ay u dhisan yihiin waana shaqaynayaan hadday tahay garsoor dacwad caafimaad xisbo intaba magaalooyinka tirada yar ee cadowga soo galayna asaaskooda wilaayadka islaamiga ayaa maamula halkaana waxaa ku beenooday riyadii cadowga ku dhisnayd in madaxyada gobolada hadii la soo galo maamulka wilaayadka islaamiga ay u dhammaan doonto midda kale beelihii oo mujaahidiinta la qabtay gaaladana ka beri noqday gumaysigana ka dhiibiyey ee la timaadaya taasoo iyaguna keentay in qorshihii gaalada uu kala dhantaalmo waxaa intaasii dheer cadowga awoodiisa ay daahday dhulkiina oo ku ballaadhay arrintaasoo mujaahidiinta fursad u siinaysa inay cadowga naafeeyaan goorta ay doonaan iyo goorta ay doonaan ay ku weeraraan Abu Subayr waxa uu sheegay in sii heshashada Kismaayo Kenya aysan ku sii waari doonin ciidamada shabaabna ay diyaar u yihiin in Kenya meel walba Soomaaliya ka tirsan ay kula dagaalamaan waxa uu ku dhiirigeliyay shabaab in ay hor istaagaan duulaan walba oo Kenya ay ku doonayso in jubooyinka ay kula wareegto fakada Kismaayo farxadeedu ma sii raagi doonto insha Allah arrinta labaad ee sintaaga mudan waa nidaamka ridada cusub oo ah aad noogu talagalay in danaha gumaysiga cusub ee dalka kusoo duulay ee horumarka ka yihiin reer galbeedka iyo caloosheeda shaqaysiyaasha amisom waxay maanta horkacaya nidaamka ridada waa koox gaalada ay barbaarisay oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba u gaarsoomay gaaladana wax walba la wadaaga diintooda iyo dadnimadoodiina duuni siistay sidaasigan dhulkeeni iyo dalkii gaalada u dhiibay waxna dhowrtadahan miidaynan dhinacna eegaynin dhan loo dayada nimankaa bulshada dhaawaca u geystay waa waxaan dadkama diidinen ceeb ka dhiidhiinen dagaalkii kastaba ay horbaa looga dhacayaaye ninba macallinkii waxu dhigay dhanan wadaagaane isticmaalkii naga dhoofo iyo gaalkiibaa dhalaye waa koronkartuu sii dhigtiyo shacabkii dheeraaye Axmed Cabdi Godane waxa uu ku micneeyay ka gudbidda xilliga kumeel gaarka in faa'iido ay ugu jirto dalalka Soomaaliya dariska la taasi uu sheegay in xilligan ay u soo jeesteen sidii kheyraadka Soomaaliya u xaalifu lahaayeen sidoo hadalku dhigay waxaa ka arkaysaa kuwa gaalada wajiyadooda nacaybka iyo jahdiidka waxaana ku siganayaan inay weeraraan kuwa aayaadka la akhriyaya Allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay war maydinka waranaa aayaadka dhisanaysaa wax ka daran oo ahmaan Allah subxaana watacaala u yabaho gaalada hadafka kale ee duulaankaas waa boobka kheyraadka dalka gaar ahaan shidaalka iyo macaadinta maadaama dunida ay soo food saartay burbur dhaqaale Soomaaliya ay u arkaan kayd ka mida kaydadkooda arrintaasi waa ka keentay inay isku dhabarjebiyaan in nidaamka ridada kumeelgaarka laga saaro si uu heshiisi u geli karo kheyraadka dalkana lagu xalaashado heshiisyadaas hadalka Axmed Cabdi Godane oo shabaab dhexdiisa looga yaqaano Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Subayr ahna amiirka ugu sareeya ayuu ka jeediyay munaasabad uu ugu talagalay Ciidul Adha inuu kula qaybsado bulshada Soomaaliyeed iyadoona warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab codkaasi uu soo gudbiyay Mareykanka oo ballaarinaya saldhigyada uu ku leeyahay Djibouti si uu la dagaalamo al-shabaab warkaan oo faahfaahsan waxa eegaya Xasan Maxamed Aweys xog ay ka heshay wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka Washington Post wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama uu qorsheynayo ballaarinta saldhigyada uu ku leeyahay waddanka Djibouti midkaasi uu Mareykanka kala dagaalamayo kooxaha islaamiyiinta ah ee ka soo ifbaxay qaaradda Afrika saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalka Djibouti ayaa maalintii 16 jeer waxa ka duula diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn oo soo ururiya macluumaadka kooxaha argagixisada ee ka jira qaaradda Afrika howlgalka diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ayaa hawshoodii waxa lagu gaabiyay kaliya la socodka dhaqdhaqaaqyada islaamiyiinta Soomaaliya ee al-shabaab
saldhiggaasi ayaa waxa uu yahay mid ku yaala koonfur bari waddanka Jabuuti saldhigga oo lagu magacaabo Camp Lomnier ayaa hore waxa uu aasaasay dawladda Faransiiska halkaasi oo ciidamada badda Mareykanka ay si ku meel gaar ah ay uga shaqayn jireen balse 2 sano kadib ayaa Mareykanka halkaasi waxa uu bedelay saldhig lagala dagaalamo al-qaacidada dibadda uga timaada xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya wargeyska Washington Post ayaa sheegaya in wariyaal ka tirsan wargeyska ay booqdeen saldhiggaasi oo ku yaala waddanka Jabuuti halkaasi oo xarunta ugu weyn ee Pentagon-ka Mareykanka kala dagaalamaya kooxaha islaamiyiinta ah ee wadamada Soomaaliya iyo Yemen saldhigga waxaa ku sugan 3200 askari ah kuwaasi oo isugu jira ciidamo si gaar ah u tababaran iyo sidoo kale kuwa sirdoonka waddankaasi Pentagon-ka Mareykanka waxa uu qorsheynayaa in saldhigyada cusub lagu bixiyo lacag gaaraysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka waxaana uu qaadayaa askar gaaraysa 100 askari oo ciidamada si gaarka ah u tababaran Mareykanka waxa uu sheegay inuu dardargelin doono sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa horjoogayaal sarsare oo ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaasi oo Mareykanka si gaar ah u bartilmaameysanayo tirada diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay cabsi ay galiyeen dawladaha ku sugan gobolka kuwaasi oo walaac ka muujiyay diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn oo dulheehaabaya hawada wadamada qaaradda Afrika Mareykanka saldhigga waxa uga bixi doontaa lacag gaaraysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka haatan waxa uu ku bixiyaa saldhiggaasi 38 milyan oo dollarka Mareykanka midkaasi oo la siiyo xukuumadda Jabuuti diyaaradaha dagaalka Mareykanka aan duuliyaha lahayn ayaa weerar ka geystay Soomaaliya dhowr jeer xilligaasi ay ku bartilmaameysadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xarakada al-shabaab ee Soomaaliya reer Muqdisho ayaa maalintii labaad si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda Ciid Carafo warkaas oo faahfaahsan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeena Maxamed Xasan Qays guud ahaan ummadaha islaamka ee ku kala nool shanta qaarada dunida waxay maanta u dabaaldegayaan maalintii labaad ee Ciid Carafo haddaba dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa kamid ah meelaha sida aadka loogu dabaaldegayo ciidan maraan socod ku soo maray qaar kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho waxay indhahaygu qabanayeen caruur dhalinyaro dadka meel dhaxaadka ah oo labisan isla markaana wajigooda laga dheehan karay farxadda iyo damaashaadka ciida qaar kamid ah dadkaasi oo saaka aroortii mikrofoonka idaacadda kulmiye aan la dhex qaaday ayaa waxa ay ka warbixinayaan dareenkooda maalinta labaad ee ciida maanta soo ciidaysa adiga soo ciidaysa maanta maalintii labaad ay u dabaaldegaysaa miya dar cusub wadataa dareenkaaga waa sidee marka wanaagsan yahay yaa kula ciidaya caruur badan miyaa la socotaa walaaleysa halkee booqanaysaan maanta yaa Madiina ku degan haweeti aad u faraxsan tahay waxaa wadataa dar cusub bastoolada maxaa yaa ku iibiyey darka adiga waxaa tahay dhalinyarada maanta maalintii labaad ciid u dabaaldegaya dareenkaaga waa sidee dareenkayga aad iyo aad buu u fiican yahay maanta maxaa u dabaaldegaysaa marka maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta labaad oo ciid oo aad iyo aad aan u faraxsaneen waaye runtii marka dadka bulshada aan isku fiirino aad iyo aad bay u faraxsan yihiin ciid hore maxay ugu duwan tahay isleedahay wallaahi aad iyo aad labadooda adiga hal ay isku yihiin magaca Faadimo Faadimo maxaa lagu diraa Umar maanta maxaa u dabaaldegaysaa maanta farxan yahay shalay waa iidi shalay yaxshiida aad waan farxan yahay maanta maxaa ku qorshaysan intii aadi maanta ina aad rabaa yaxshi maanta aad u labisan tahay dareenkaaga sidee waaye aad u faraxsan tahay ayaa kula socda xag markaa aadaysa faraacay ani fahmo bas magacaaga Bofartan Umar Qeena liidahay marka maanta maxaa u dabaaldegaysaa maanta farxad ma sha Allah ciid u dabaaldegaya maanta waa maalintii ciid dareenkaaga sidee waaye marka bismillah dareenkayga saad waa ciid ku faraxsanahay ciidii hore maxay ugu duwan tahay isleedahay waxweyn ciid weyn maanta aad u labistahay dhaxda xataa ku dhogsantahay maxaa farxadda waxa lagu qiyaasi karaa farxadda saal caadi marka saad waayo qaraasalaanka ayaa ciid badan maanta qaraasan waayo saameeyna udiyan tagaya ilaa iyo buulixooda ilaa meelaha soo wareegay intaas dhan soo wareegay maanta farxad weeyaan ciidan waa ciid labaad ee sidii weyn ugu dabaaldegaan ummadaha islaamka waxaan arkaysaa wajiyo faraxsan dad wada dhalo cadeynaya kuwa ismarxabeynaya kuwaasoo qaarkood qaraabo salaan u aadaya ehladooda oo laga yaabo inaysan muddo is arkin hase ahaatee ciidan ay fursad u noqotay inay ehladooda soo salaamaan waxaana leenahay dhammaan dadkaasi kulla caam wa antum biqeyr ciidan ciideeda ku gaara bashbash iyo barwaaqo
qarax ay dad wax ku noqdeen oo lagu weeraray maqaaxi ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose warkaasi oo faahfaahsan waxaa gobolka Gada nooga soo diray wariyaheena Jeylaani Xuseen Yuusuf qaraxan ayaa waxa uu san rismi ah oo ka dhacay goob muqaayada inta badan bulshada isugu yimaado waxaana goobtani ka soo horjeeday xarunta degmada qaraxa ayaa waxa uu hamiinada dhulka lagu duugo oo laga habo remote controlka waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh shan qof ayaa dhaawac ka soo gaaray oo saddex kamid ayaa ayeen gabdhihii goobta ku ganacsanayay walow mid kamid ah markii dambe dhaawaca awgiis ay u geeriyootay iyo laba askari oo ku sugnaa goobta markuu dhacay qaraxa ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamada dowladda oo ka bilaabay goobta howlgallo baaritaan oo lagu goldoonayo ciddii sida rasmiga ugu dambeysay falkani waxaan qadka taleefanka aan kula xiriiray Cabdullaahi Calo oo kamid ah saraakiishii goobta gaartay iyagoo soo salaamaan waxaana leenahay dhammaan dadkaasi kullu caam wa antum biqayr ciideeda ku gaara bashbash iyo barwaaqo qarax ay dad wax ku noqdeen oo lagu weeraray maqaaxi ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose warkaasi oo faahfaahsan waxaa gobolka Gada nooga soo diray wariyaheena Jeylaani Xuseen Yuusuf qaraxan ayaa waxa uu san rismi ah oo ka dhacay goob muqaayada inta badan bulshada isugu yimaado waxaana goobtani ka soo horjeeday xarunta degmada qaraxa ayaa waxa uu hamiinada dhulka lagu duugo oo laga habo remote controlka waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh shan qof ayaa dhaawac ka soo gaaray oo saddex kamid ayaa ayeen gabdhihii goobta ku ganacsanayay walow mid kamid ah markii dambe dhaawaca awgiis ay u geeriyootay iyo laba askari oo ku sugnaa goobta markuu dhacay qaraxa ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidamada dowladda oo ka bilaabay goobta howlgallo baaritaan oo lagu goldoonayo ciddii sida rasmiga ugu dambeysay falkani waxaan qadka taleefanka aan kula xiriiray Cabdullaahi Calo oo kamid ah saraakiishii goobta gaartay oo ka dhacay suuqa magaalada yool oo degmada magaalada meesha laga maamulo ah beejooda fadhiisa oo lagu fariyo shacabka oo dad shacaba iyo ciidanka maalmaha ciida Arafo ay si aad ay u weynayaan muslimiinta caalamka afayeenka ayaa shaaca ka qaaday inta ay soconayaan maalmaha farxadda ciida Arafo ay shacabka wadankaasi ay galaan taxadar aad u weyn isaguna arintaasi ku micneeyay in kooxda al-shabaab ay ka faa'iideysan karto farxadda maalinta muslimiinta ciida Arafo ay qaraxyo ka geysan karto wadankaasi Uganda Eben Zenkombi afayeenka booliska wadanka Uganda ayaa muujiyay sida ay iyaga dhankooda farxaddaasi ula qaybsanayaan shacabka u dabaaldegaya ciida Arafo balse waxa uu tilmaamay inay jiraan koox u diyaar garoobaysa kicinta foodo ka dhalata wadankaasi booliska Uganda ayaa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee caasimadda iyagoo ka feejigan weerar waliba oo suurtagal ah inay ka dhacaan wadankaasi shacabka wadanka Uganda ayaa loogu baaqay inay ku soo wargeliyaan ciidamada sirdoonka wadankaasi wax walba ay uga shakiyaan inay yihiin canaasirta al-qaacida sida shakhsiyaad aan heebtooda la garanaynin sidoo kale boorsooyinka looga tago goobaha ay saxmadda ah iyo gawaarida iyo sanaadiiqda la iskugu hadiyeeyo sidoo kale waxa uu sheegay afayeenku in sanadii 2011 bishii July xarakada al-shabaab ay si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerar qaraxyo oo ka dhacay caasimadda ka ogolaatay shakhsiyaad gaaraya 70 qof waxaana halkaasi uu sheegay in ay ka heleen khibrad ku aadan weerar walba oo argagixiso ah oo ka dhici kara wadankaasi shabaab waxa ay ku hanjabeen inta ay ciidamo ka socda wadanka Uganda ay ku sugan yihiin wadanka Soomaaliya ay suurtagal tahay inay weerar ay ka geystaan wadankaasi qaar kamid ah shirkadaha ganacsiga oo kala qayb qaatay bulshada ciida Arafo warkaani oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine lamaanta ayaanta iyo ciida wanaagsan ilaahayna siiyay isaga kuwabaale idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho oo maalintii labaad weerar ay ka geystaan wadankaasi qaar kamid ah shirkadaha ganacsiga oo kala qayb qaatay bulshada ciida Arafo warkaani oo faahfaahimada ka baxaya ay ku dhiibayso hadiyada qaali ah kuwaas oo idaacaddu ay ka kaashanayso shirkadaha markasta ka dhex muuqda oo heelinta bulshada waxaana kamid ah shirkadda Hormuud Telecom shirkadda diyaaradaha African Airways xawaalada Juba Express warshada isbuunyada Shaakir shirkadda Telecom Soomaaliya iyo shirkadda Colaad Company shirkadaha aan dhammaan kor ku soo xusay ayaa ah kuwa door ku dhaxleh bulshada iyagoo ka qayb qaatay wax ka qabadka fatahaadihii ay sameeyeen wabiyada mara Soomaaliya
kuwaas oo dhibaato u geystay dad ku nool qaar ka mid a gobollada dalkeena Soomaaliya. waxaa kaloo ay ka qayb qaateen gurmadkii loo fidiyey dadkii ay saamaynta ay ku yeesheen abaartii sanadkii hore ku dhufatay gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalkeena. hadiyadahan qaaliga ah ee shacabka Soomaaliyeed ugu talagaleen shirkadahan ayaa markii la soo marsiiyey maamulka idaacadda KNN ee magaalada Muqdisho waxaa looga farxiyey intii nasiibka u yeelatay in ay ku guuleystaan. waxaana hubaal ah in kulmiye markasta ay la qaybsanayso shacabkan marxalad waliba ay xilligaas ku jiraan. ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. caalamkeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahayna siiyey isaga ku abaale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacbiga Soomaaliyeed inay isgargaaraan maalmaha ciidda ah. warkaas oo faahfaahsan waxa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyeen Cabdiqadar Cabdullaahi Maxamed. xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay isgargaaraan isla markaana ay caawiyaan dadka liita kana ay qayb qaataan sidii dadkaasi ay uga bixi lahaayeen dhibaatooyinka. waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay sidoo kale in dadka masaakiinta ay awoodin in maalmaha ciidda ay ciidaan ay ka farxiyaan dadka waxaysta. dawladdan uu sheegay inay garab taagan tahay dadkaasi isla markaana ay caawin doonto isagoona uga hambaliyeeyay shacabka Soomaaliyeed maalinta labaad ee Ciidul Adha. dadka Soomaaliyeed ay iskaashato kuwa danyartaana ciidda farxadeeda halala wadaago. dawladuna intii karaankeeda ah way ka qayb qaadan doontaa kuwa waxyaaradu ay hayso inay farxad ku ciidaan ayaguna diyaariyaan. aan leenahay marka dhammaan dadka Soomaaliyeed ciid wanaagsan mar kale. sanadkiisana waxaan rajaynaynaa in Ilaahay sacaado iyo nabad lagu gaarsiiyo dhammaantiin. ciid wanaagsan. mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhanka kale kula taliyay waalidiinta Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka reebaan waxyaabaha xumaanta oo tilmaamay in aan loo baahnayn xilligan isagoona sheegay in maalmaha ciidda awgeed laga reebo caruurta dhibaatooyinka ay gacmaha kula jiraan dadkoodana ay u soo laabtaan. dawladana uu tilmaamay inay dadkaasi u balan qaadi doonto inay siiso tababaro ku filan iyo waliba waxbarasho. Allah hawiyasha iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee wiilashooda iyo gabdhahooda ay ku jiraan colaadda iyo dagaalka ee qoryaha ay sitaan ee walaalkooda kale Soomaaliga dhiiggiisa ay daadinayaan. waxaan leenahay carruurtiin waa caqli celiya. annaguna dawladda haddii aan nahay waxaan siinaynaa fursad ay nolol cusub ay ku galaan, fursad ay cizi iyo karaamo ay adduunyada kula noolaadaan. midowga Yurub iyo Itoobiya oo ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab. warkaan oo faahfaahsan waxa ay noo haya wariyaheena Xaawa Luul Cabdulle Cubayd. magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa ku kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeela Maryam iyo ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika Alex Randos waxaana ay ka wada hadleen arrimo intooda badan quseeya la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada. wakaalada wararka ee FB ayaa ku warameysay in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeela Maryam iyo ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika Alex Randos ay ka wada hadleen sidii ay u sii laba jibaar lahaayeen in gobolka Geeska Afrika looga ciribtiro waxa ay ugu yeeraan argagixisada sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka al-shabaab. warkaan oo faahfaahsan waxa ay noo haya wariyaheena Xaawa Luul Cabdulle Cubayd. magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaa ku kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeela Maryam iyo ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika Alex Randos waxaana ay ka wada hadleen arrimo intooda badan quseeya la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada. wakaalada wararka ee FB ayaa ku warameysay in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeela Maryam iyo ergeyga gaarka ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika Alex Randos ay ka wada hadleen sidii ay u sii laba jibaar lahaayeen in gobolka Geeska Afrika looga ciribtiro waxa ay ugu yeeraan argagixisada Soomaaliya.
ayagoo farta ku fiiqay xarakada al-shabaab ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay inay caqabad ku tahay xasiloonida qaarada Afrika iyo caalamka oo idil sida wakaalada wararka ee FBI ay sheegayso. Xeela Maryam waxa uu sheegay in dawladdiisa ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah al-shabaab oo gudaha Soomaaliya ay ka wado, waxaana uu tilmaamay in ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya ku sugan aysan ka soo bixi doonin dalka Soomaaliya ilaa iyo inta ay ka wiiqayaan awoodda al-shabaab. Alex Randos, ergeyga gaarka ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Afrika, ayaa isna sheegay magaalada Boosaaso iyo deegaanada ku dhow duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdullah Xasan oo booqday qaar ka mid ah buundooyinka wadada ee burbura ayaa kadib waxa uu la hadlo warbaahinta isagoo ka warbixiyay khasaarihii ay geysteen roobabkii da'ay. roobkaasi waxa weeye raxmad Ilaahay buu ahaa waa lagu liibaanay oo si fiican buu qabtay hase yeeshee waxa ka dhashay dhibaatooyin maxaa la yiraahdaa dhinacyo kala duwan leh sida buundooyinkii ama aan iraahno meelihii turbiinka biyuhu mari jireen ee maxaa la yiraahdaa agaarka magaalada waxa dumay oo hadda wadadii laamiga ah ka go'an tahay ugu yaraan 6 buundo ama 6 biyo mareen meelaha oo turbiinka dhulka la yiraahdo biyuhu hoos maraan ayaa dumay taas oo ay u sabab tahay roobka oo xoog badnaa muddo badan da'ayay iyo meelahaas oo muddo hore oo hadda laga joogo 22 sano la sameeyay taas waxay keentay in meelo badan hadda laamiga ka go'o wixii aanu qaban karo itaalka yaa waa qabanayna laakiin waxa moodaa waxa wadeeda ka weyn inay tahay waxaanu kaloo isku dayaynaa inanay xirmin wadadu oo meelo kale oo la maro oo dhinacyada ah la sameeyo oo la jeexo dhaqaaquna sidii caadiga ahaa uu socdo gaadiidka ee u kala gooshaya Puntland degmooyinkeeda kala duwan ee ka baxaya Boosaaso. Taliyaha laanta wadooyinka ee gobolada Bari Karkaar iyo Sanaag Maxamed Finiin ayaa sheegay in laga badbaaday khatar weyn oo dhici lahayd haddii uu roob xooggan di'i lahaa isagoona xusay sababaha keenay dhibaatadaasi. Qabtay haddii roob ka badan di'i lahaayeen wadanka waxba kala ka dhici lahaa meeshan waxa sida u galay dhismayaasha laga dhisay meeshii balliga loo sameeyay in biyuhu ay biyuhu siday ahayd ay u maraan sida loogu talagalay uga baxaan turbiinka haddii la dhisay oogada sare laga dhisay biyo awood bay yeesheen intii biyo ku dhaclay turbiinku xoog bay u herdiyeen saasay kula baxeen turbiinka waxa jira oogaday ka mari jireen banaanka ka mari jireen wax gaari jireen ma jiro dhibaato la dhacday waa mid dadku abuuray kana abuuray meelahan ah buntajifyada 7 buunta go'an 7 buunto go'an 7 buuntaba ciid iyo dhismaa la dhigay. dhanka kale marka laga soo tago dhibaatada ay roobabkani u geysteen wadooyinka waxa ay saameyn dhanka hoyga ay ku yeesheen dadka barakacayaasha ah ee ku leh kaamamka gudaha magaalada Boosaaso. Xuseen Xuska, Radio Kulmiye, Boosaaso. dhegeystayaal waxaan halkaa inooga eg wixii war ahaa oo caalamka inaga soo gaaray warkaana waxa idinla socodsiinaya caawa anigoo ah Cabdifataax Xuseen Goley magaalada Munich anigoo ah Axmed Xiiri Jalo Axmed Taajir magaalada Oslo waxaan idin leenahay ciid wanaagsan intaan warkiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida in wadgaliyo kullu caam wa antum biqayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idinku wareejino istuudiyaha magaalada Muqdisho ee Radio Kulmiye.